السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي ملك استجوكتا وين السلام يا وأنا جو أحمد هنية جلنا كان نقدر وانا سنة وبوم بوي فضلنا هذا جلنا كل عصب تاي سبسكرايب نوصار لايك إيه شير إيه كومنتين تبان نودي سياد ولا صعطة مقال كحيجة إن عاو حنكسو قلنا هاي استاديوم بون إن كاسون ودنا جانا جيرو كويشن ببلكا وقصلا ونلص عنيسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن مقعة waxaa la yiraahdaa ma su'aal mahad lambe إن waxaan ku weydiinayna caawa su'aalo dadka aan weydiinayno waxay ka oranaysaa sida tan in gabadh ayaad muddo wada sheekaysanaysiin ismaad arag meel kuma wada noolayn laba dalbaad ku kala noolaydeen in waxaan ku tiri gabadhii aan isguursano kadib waa isguursateen in markaas isguursateen toddobaadkii arooska lagu jiray ayaa waxa ku tiri saddex ciyaal ayaan wataa maad ku gali lahayd mise kuma gashiin su'aasha wallahi kuma galeen anu haye sababtu dee afar ciyaal ay wada taaba haye markaa kuma galeen dee qof jacayl aad guursatay markii hore oo kharash kaaga baxay haddana sideed u furi may waan furi lahaa haye wax walba oo dhaca waayahay waad maasan tahay in assalaamu calaykum عليكم السلام magacaa شاكر اسكو in kusoo dhawow jalanka bomboy وندوه in caawa su'aal dadka aan weydiinayna ayaan ku weydiinaynaa diyaar mawta وانا haye waaye in su'aashu waxay ka odhanaysaa sida tan in waxa jiray gabadh ayaad wada sheekaysanayseen gabadhii in muddo aad wada sheekaysanay meel kuma wada noolayn laba dalbaad ku kala noolaydeen labadii dal kadib arooskiinii wad qabsateen toddobaadkii ugu horreeyey markaad joogtiin bay ku tiri saddex ciyaal ayaan wataa gabadha maad furi lahayd maad ku geli lahayd maad sii wadan lahayd sideed ka yeeli lahayd مفرين sababtuna وندين لها صببتو أفر بيودتي أفر لمدان كديل لها كدب waad mahadsan tahay asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaa walaal حسن xasan kusoo dhawow jalanka bomboy hey welcome tonight in waxaan ku weydiinaynaa caawa su'aal public oo dadkaan weydiinayno صح waxay ka odhanaysaa sida tan صح in gabadh ayaa waxa wada sheekaysanayseen muddo صح wada sheekaysanayseen صح kadib ismaad arag laba dalbaad ku kala noolaydeen صح markaad arooskiinii qabsateen toddobaadkii arooskaad ku jirteenee dhacay صح ayaa waxa ku tiri saddex ciyaal ayaan wataa صح maad ku geli lahayd mise waad furi lahayd gabadhaas seed ka yeeli lahayd saddex ciyaal wataa way tiri waxaad boosataa ku dhulaa sababtuna ilaa kharash baa kaaga baxay lacag baa kaaga baxday in maal baa kaaga baxay sideed ugu odhan lahayd si yaroo dhib yar waad mahadsan tahay may hadday lacag iyo waxaan kasii horreysay waxaan odhan lahaa waa sax oo mid kalean raadsan lahaa oo niyadda ku dhisi lahaa waad mahadsan tahay عليكم السلام in magacaa فيصل faysal kusoo dhawow jalanka bomboy aad baan ugu dhawahay in caawa in waxaan dadka weydiinaynaa in question public markaa waxay ka odhanaysaa sida tan in gabadh ayaad muddo wada sheekaysanayseen in badan kadib laba dalbaad kala joogteen in guur baad iyaad go'aansateen inaad isguursataan kadib waa isguursateen toddobaadkii ugu horreeyey aqalgalkii ayay gabadhi ku tidhi saddex ciyaala ayaan wataa gabadha maad ku geli lahayd maad furi lahayd sideed ka yeeli lahayd bal noo sheeg oo markii horena ay sheegatay inay gashaanti tahay oo oo ay ku khiyaantay waa su'aal horta dhacda oo way ka dhacdaa dunida rag badanna way ku dhacday kolley way kala duwan yihiin mataqaanaa fikrada raggu oo nini markaaba uu ka boodi lahaa oo uu ka carari lahaa laakiin aniga faysal ahaan kagama tegeen waayo awlaadu waa quratul cayn waa quruxda dunida weeyaan waan la korin lahaa gabadha awlaadaas waad mahadsan tahay waa naseerka bini'aadanimo waayo qofkii wax kaa galay kharash maal baa kaa galay ninkii fikrad le waxa gacantiisa gooshu gashin lahaa soo ma waayo waad mahadsan tahay assalaamu calaykum walaal calaykum salaam waraxmatullah kusoo dhawow jalanka bomboy waan dhawahay waad mahadsantihi waxaan caawa dadka weydiinaynaa su'aalo yaroo
iska meel dhexaa ma ogashaa in lagu weydiiyo walaal ها ديار بنا waxay ka odhanaysaa su-aasha lagu weydiinaya sida tan gabadh ayaad muddo wada sheekaysanayseen ismaad ereg markii hore waxay ku tidhi gabadh uguba baan ahay kadib waa isguursateen markaa isguursateen ee uu arooskii dhacay toddobaadkii dambe ayay kuu sheegtay inay 3 carruura inan hore ayuu leedahay way kala tegeen markaa gabadha maad ku geli lahayd maad furi lahayd maad sideed yeeli lahayd بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u soo dhaweynayaa janalka su'aashaad weydiisay jawaabteeda kulley qofkaas kolkii hore waxaan ku heshiinay in ay gabadh tahay anuguna han wiil ah khiyaamay samaysay dabcan maadaamay khiyaamo samaysay arrintaasi waan ka noqon lahaa sababtoo ah maadaamay kolkii hore tidhi hay khiyaamo samaysay oo been sheegtay waxaa laga filan karaana ee dambe mustaqbal waayo anu doonayaa inaan mustaqbal qofkaan wadaagno nolol wadaagno maadaama ay khiyaamayso ay tiri ay been sheegtay waxa dambe laga filan karaana been buu noqonayaa sidaa daraadeed iminkaan dhawahay sidaa daraadeed waan ka noqon lahaa dee kharash baa kaaga baxay maal baa kaaga baxay sideed markaa ma ilaahay baad ku dayn lahayd kolley waa maal waxba waa la helaa laakiin qofkan waxaan kula ballamay inaan nolol dhisano mustaqbal dheera adduun yar oo maalma kaa baxay waa la helaa laakiin mustaqbalkaagii nololeed oo in muddo dheer ahaa dee ma helaysa sidaa daraadeed kharashka waxba maaha iyo wax iga gala waxba maaha laakiin mustaqbalkayga iyo aayahayga anoo eegaya waan ka noqon lahaa waad mahadsan tahay boqolkiiba assalaamu calaykum walaal calaykum asalaam ku soo dhawow janalka bomboy waan ku dhowahay janalka bilabiska magacaa walaal maxamed jaawi maxamedow Ah. caawi su-aaladkaan weydiinana ku weydiinana markaa gabadh ayaad wada sheekaysanayseen in muddo ah ismaad arag laba dalbaad ku kala noolaydeen inaad isguursataan baad yaad go'aansateen waa isguursateen toddobaadkii ugu horreeyey ee qalgalkiinnii markuu arooska dhacay kadib bacdi ayay gabadhii kuu sheegtay afar ciyaalo inan hore aan kala tegnay ayaan wataabay ku tidhi markaa gabadha maad ku geli lahayd maad furi lahayd maad sideed odhan lahayd dee waxa tahay guur maayo waa nin reer la dega weeyaan ama markaa xoolina waa maasa tahay waad maasantaad ka odhan lahayd waad Ah. maasantahay adiga laftigaagu